musharax Saleebaan Aadan Cilmi Saleebaan Dheere oo dhawaan ku dhawaaqay inuu u taagan yahay jagada musharaxnimada madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State sidoo kalena ah afhayeenka golaha deegaanka Khaatume State ee degmada Buuhoodle ayaa waxa uu saaka booqday qaar ka mid ah iskuulada hoose dhexe iyo dugsiga sare ee Hawd Secondary School ee magaalada Buuhoodle isagoona ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wataan waxbarashadooda kuna adkaystaan sidoo kale waxa uu ka warbixiyay musharaxu waxqabadkiisa ku aadan hadduu ku guuleysto jagadaasi iyo waxyaalaha uu ka bedeli doono waxbarashada deegaanka dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan golaha deegaanka oo booqashadaasi ku wehelinayay iyo sidoo kale mas'uuliyiinta iskuulada uu booqday musharaxu sodcaalkay wuxuu ku saabsan yahay inaanu marka hore idin dhiirigelino oo aan idinku dhiirigelino waxbarashada wanaagsan ee aad wax baranaysaan idinkoo nabadgelyo qaba secondary ku dhiganaya dhulkiinii dawladdii hore ee Soomaaliya markay joogtay ma ilahayn Buuhoodle secondary idinku chance waxaad u yeelateen arday chance waxaad u yeelateen inaad idinkoo magaaladiinni jooga oo nabadgelyo qaba oo guryihiinni ku nool inaad secondary ku dhigataan secondary-ga Maxamed baa la qaban jiray ama Sheekh ama Hargeysa loo bedelan jiray ardaygu isagoo markaa duruufta iyo dhaqaalaha reer kala marti ku noqda inuu wax soo barto runtii dhalinyarada waxaad haystaan chance ka aad haysataan waxaan idinkula talinayaa inaad ka faa'iideysataan Soomaaliya waa ogeydeen oo dagaal iyo waxa ka dhacay fidmooyin fara badan maanta qofkii laga bilaabo maanta qofka wax bartay baa shaqeynaya runtii haddaad wax barataan waxaad noqonaysaan dad idinkuna is anfaca dalkana anfaca inagoo ka maamul ahaana baa layna siin doonaa ka deegaan ahaana waxaa layna siin doonaa waxa la yidhaahdo in scholarship baa layna siin doonaa taasaan idinku bishaaraynaynaa maamul wacan bay noqonnay waa layna aqoonsaday aan ku guuleystaan waad ogtahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Khaatumaan hay 2014 haddaan ku guuleysto waxaan idin ballan qaadayaa inaan wax badan ka bedeli doono tacliinta maanta jirta wax badan baan ka bedeli doonaa waana tayeyn doonaa haddii la tayeeyo oo manhajka la tayeeyo qofku wax buu baran doonaa marka anaga ballanqaadkayga waa ka soo baxaynaa idinkuna ballanqaadkiina waa inaad dadaashaan dalka iyo dadkana aad u shaqaysaan ugu dambeyntii waxaan idinkala dardaarmiyaa tahriib waad ogtihiin Buuhoodle sidii waqooyiga tahriib ka socon jiray labadii bishii aynu soo dhaafnay ee March iyo February tahriib fara badan baa Buuhoodle ka dhacday saxaraha qaar fara badan ayaa ku jajaban qaar badan baa ku xirxiran qaar badan baa kaniisada dawrsanaya Itaaliya idinkoo muslimiina inaad kaniisad masiixi leeyahay aad Talyaaniga ku dawrsataan oo teendha inta lidin dhiso guryo daaraba degantiina teendha inaad ku distaan barafku idin dilo saxarahana naftiina aad ku halaagtaan dib bay leedahay naftiina halaagina aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa maamulka iyo macallimiintaba iyo cid kasta oo ku hawlan ama ka qayb qaadatay muxuu ahaa in ay suura gasho in uu dugsigani noqdo mid muhiim ah oo maartay dadkiisa wax tara aad bay u mahadsan yihiin waftigayna soo booqday golaha deegaanka oo musharaxu ka mid yahay odayaasha aqoon-yahanka aad bay u mahadsan yihiin runtii booqashada ayna soo booqdeen haddaad wax baratana qof nool baad noqon oo dalka hogaamiyeeshiis ka mid noqoto wiil iyo gabadha haddaad waxba baran weydaana kuwa gidaarada qaadka ku cunaya ee dhowr carruuroo ay dhalan ku baaba'ayaan ee aan nolol haynin ee memorize gareeya xifdiya dad ay caayaan ama wax ka sheegaan nolol aan haysan Saleebaan Aadan Cilmi ayaa wuxuu noqonayaa musharaxii u horeeyay ee kaga dhawaaqay inuu musharax yahay magaalada Buuhoodle Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad magaalada Buuhoodle